Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waxay ahayd shirkaddii ugu horreysay oo dunida ku soo kordhisa moobeel laga isticmaalayo shaashadda ama iskiriinta. Sidoo kale waxay ahayd shirkaddii ugu horreysay oo dunida ku soo kordhisa laabtoonnada ama wax loo yaqaano personal computer-ka. Sidoo kale waxay ahayd shirkaddii ugu horreysay ee dunida ku soo kordhisay moobeelada loo yaqaano tablet-ka ama iPad-ka. Horraantii sanadkii 1976 nolosha xilligaas jirtay waxay ahayd mid ka duwan midda aan haatan ku noolnahay. Wax badan oo maanta aad u fududna waxay ahayd waqtigaasi mid aad u adag oo aan suurtagal ahayn. Isgaarsiinta ugu fiican ee xilligaas jirtayna waxay ahayd taleefannada guryaha, waxayna ahayd mid ku adag dadka intiisa badan, waxayna tanina ahayd hordhac bilowgii tiknoolajiyadda. 1 Abriil 1976 ayaa markii ugu horreysay Steve Jobs iyo saaxiibkiis Steve Wozniak bilaabeen shirkadda Apple, iyadoo da'da Steve Jobs ay ahayd waqtigaas 20 sano, halka saaxiibkiisna uu ka weynaa dhowr sano oo keliya. Labadan ninna waxay ahaayeen drop out ama waxbarashada wayba ka saaqideen. Haddaba labadan wiil wax dhaqaale ah ma aysan haysan, waxayna shaqada ku bilaabeen geerishka guriga Steve Jobs, waxayna u guntadeen sidii ay u samayn lahaayeen shirkadda soo saarta kombiyuutarada. Waxayna soo amaahsadeen qalabka hardware-ka ee kombiyuutarka ku shaqeeyo, sababtoo ah wax lacaga ma aysan haysan. Waxayna ballan qaadeen inay muddo 30 cisho ah isaga bixin doonaan deynta lagu leeyahay. Intaa wixii ka dambeeyay waxay dhexda u xirteen, habeen iyo maalinba u soo jeedeen sidii ay u samayn lahaayeen kombiyuutarkoodii ugu horreeyay. Dadaal baa miro dhalee. Farxaddoodii ugu horreysay waxay koosatay markii ay dhammaystireen kombiyuutarkoodii ugu horreeyay oo ay ugu magac dareen Apple I. Qiimaha lagu iibinayay kombiyuutarkaasi wuxuu dhammaa $665, iyaga oo ka iibiyey kombiyuutaradaas 200 oo xabbo. Intaas wixii ka dambeeyay waxay iska bixiyeen lacagtii lagu lahaa ama deyntii. Kombiyuutarka Apple ma ahayn mid muuq iyo qaab ahaan toonaba aad ku suurayn doonto kombiyuutarka caadiga. Ma uusan lahayn shaashad, sidoo kale ma uusan lahayn muus. Wuxuuna ahaa bilowga personal computer ama laptop. Intaa wixii ka dambeeyay waxay u guntadeen dagaalka iyo horumarka dheeraadka ay ku bixiyeen sidii ay u soo saari lahaayeen kombiyuutarkoodii labaad. Sanadkii xigayna waxay soo saareen kombiyuutarkoodii labaad, kaasoo la oran jiray Apple II. Kombiyuutarkan wuxuu kaga duwanaa kombiyuutarkii hore, wuxuu lahaa shaashad, muus iyo keyboard. Intaas wixii ka dambeeyay shirkadda Apple waxay noqotay shirkad jirta, suuqana kula tartanta shirkadaha xilligaas calanwalaynayay ee Microsoft iyo IBM. Sanadkii 1985 waxay shirkadda Apple la soo darsay murano ay dhalisay suuq xumo, iyadoo eedda dusha looga tuuray Steve Jobs oo ahaa aasaasihii shirkadda. Waxaana shirkadda isaga tegay saamiyadii uu ku lahaana xarashtay saaxiibkiis la aasaasay shirkadda ee Steve Wozniak. Intaas wixii ka dambeeyay waxaa kulan degdeg ah yeeshay dhammaan dadkii saamiyada ku lahaa shirkadda, waxaana la go'aamiyey in shaqada laga cayriyo Steve Jobs oo ahaa aasaasihii shirkadda. Steve Jobs oo ka xanaaqay waxa ku dhacay, wuxuu qiimo jaban ku xaraashay dhammaan saamiyadii uu ku lahaa shirkadda, wuxuuna aasaasay shirkad lagu magacaabo Pixar Animation Studio oo ahayd shirkadda soo saarta filimada kartoonka. Wuxuuna ka faa'iiday shirkaddaas dhaqaale aad u ballaaran iyo abaalmarino qaali ah. Haddana waxa uu ku xijiyey shirkadda lagu magacaabo Next. 12 sano kadib waqtigii shaqada laga eriyay Steve Jobs oo ku beegneyd 1997, waxaa shirkadda la soo daristay khasaare aad u ballaaran, taasoo ku dhowaatay in shirkadda albaabada la isugu laabo kadib markii ay shirkadda Microsoft ay suuqa gebi ahaantiisba la wareegtay, soona saartay Windows 95. Taasina waxa ay sababtay in loo yeero Steve Jobs dibna loo soo sasabo si uu shirkadda uga badbaadiyo in albaabka loo laabo. Steve Jobs wuxuu mar kale ku soo laabtay shirkadda Apple, wuxuuna wax ka bedelay maamulkii shirkadda. Sanad kadib soo laabashadii Steve Jobs waxay Apple suuqa keentay kombiyuutarka aan noociisa horey loo arag oo lagu magacaabo iMac. Kombiyuutarkan waxay shirkadda ka faa'iiday malaayiin dollar, iyadoo Apple ka soo kabsatay suuq xumadii la soo daristay. Sanadkii 2001 Apple waxay suuqa la shartimid operating system
caalamka ka yaabsaday kaasoo loo yaqaano Macintosh Operating System, kaasoo ay shirkaddu ka faa'iiday dhaqaale aad u ballaaran. Sanadkii 2003 waxay soo saartay kaydka muusiga ee adduunka ugu weyn ee loo yaqaano iTunes. Tan iyo intii Steve Jobs shaqada uu ku soo laabtayna wuxuu horumarka Apple noqday mid joogto ah. 2007 waxay Apple ku dhawaaqday wax caalamka dhan ka yaabsaday, waana bilowgii taleefanada caqliga leh ee loo yaqaano iPhone. Iyadoo fikirka iyo ikhtiraca uu lahaa Steve Jobs, waxay Apple sanadkaas iib keentay taleefankeedii ugu horreysay ee loogu magac daray iPhone. Taleefankaas wuxuu ka dhigay moobiladii oo kombiyuutar yar ah oo jeebka lagu ridanayo. 2010 waxay suuqa keentay brodhakti casri ah looguna magac daray iPad, kaasoo indhaha caalamka soo jiitay malaayiin dollarna shirkaddu ka faa'iiday. 2011 waxaa cudurka kansarku dilay madaxii sare ee shirkadda, ahaana ninkii aasaasay shirkadda Apple, Steve Jobs, isagoo ahaa nin kale farsamada iyo dhisaynka. Inta badan waxay shirkaddu soo saartay. Tan iyo intuu dhintay Steve Jobs, waxay Apple caalamka ku soo kordhisay brodhakti cusub kaasoo lagu magacaabo Apple Watch, oo ah saacad ku xirmaysa moobilada waxna laga wici karo. Waxay haatan Apple qorsheynaysaa inay soo saarto gaariga iskiis isku wada ee aan lahayn darawalka. Haddaba markaad ogaato in wax kasta aad aragto inuu sameeyo qof kula mida, waa hubaal in adduunka aad wax ku soo kordhin karto. 1976 bilowgii aasaaska shirkadda Apple, shaqaaluhu waxay ahaayeen ama ay gaarayeen 2 qof oo keliya. Maanta shaqaalaha Apple waxaa lagu qiyaasaa 137,000 oo qof. Lacagta Apple lagu aasaasay waxay ahayd deyn ama amaah. Maantana saamiga dhaqaale ee Apple wuxuu dhan yahay $926.9 bilyan oo dollar, waana shirkadda ugu hantida badan dunida. Dhismihii lagu bilaabay Apple wuxuu ahaa geerishka guriga Steve Jobs. Maanta baaxadda dhul ee shirkadda Apple waxay gaaraysaa wax ka badan 20 kiiloomitir oo isku wareega, oo qiyaastii la-eg hal magaalo. Waxa kale oo ay shirkaddu leedahay 510 store oo ku kala yaala 25 dal oo lagu iibiyo waxa ay shirkaddu soo saarto.